arrest, and they are asking the public to be on the lookout for him. You killed her. We all know you did. Amina Salad has a message for her sister's alleged killer. You're a man enough to kill my sister. halkee ayuu ku dambeeyay kiiskii Kerow ee dalka Maraykanka ku dilay xaaskiisa Cabdicasiis Kerow sanadii 2019 ayuu dalka Maraykanka ku dilay xaaskiisa Muna balse toddobaadkan ayuu ka soo dhex muuqday mid ka mid ah maxkamadda ku taala dalka Maraykanka Kerow maxkamadda wuxuu ka hor sheegay in xaaskiisa uu dilay nin kale oo isaga waqtigaasi la jiifay oo isticmaalayay wuxuu sheegay in raganimadiisa ay eber tahay ninkana uu isagu ahaa nin nolosha kala dhaxayso balse Muna ayuu sheegay inay muuqaal ay ka duubtay isagoo la isticmaalayo sidaas waxa ku dilay ninkii kale ee isaga la jiifay maxkamadda hadda waxay amartay in la geeyo labada nin hospitaal kadibna baaritaan lagu sameeyo dhanka raganimadiisa iyo in gogol dhex martay labada nin waa mid ka mid ah qisooyinka iyo sheekooyinka ugu waaweyn ee lagu qoray warbaahinta dalka Maraykanka iyo ta guud ee caalamkaba 10 News reporter Lauren Davis live now. Lauren, the family just returned from the funeral and has a message for that husband. That's right. He started off as a person of interest, but after police found new evidence against him, they are calling him a suspect and have issued a warrant for his arrest. And they are asking the public to be on the lookout for him. You killed her. We all know you did. Amina Salad has a message for her sister's alleged killer. You're a man enough to kill my sister. Show yourself. Come and stand in front of our face. All her sisters. Come and stand in front of us. Amina found her sister, Mooney Salad Curry, dead inside her City Heights apartment on Van Dyke Avenue Monday during a welfare check. Now police are looking for her husband of 5 years, 45-year-old Abdiaziz Kiro. He's 5'9", 100. dowladda Soomaaliya waxaan faagtay oo dadka oo hooyayaasha looga qaadanayo ilmahooda oo la leeyahay ma rabto hooyo walba cunugeeda way rabtaa qof cunugiisa nacaya ma laha halkaan waxaan soo galay maanta in aan ka hadlo dhibaato ii haysato nin iskursan ii geystay kaasoo la dhahay magaciisa Absana Abdullahi kuna magac dheer Angola Hiiraan Sweden ku joogo guuleed maxamed xaashi waxaan u dhalay gabar wuxuu idhay gabadhaada waa ku wadaya markaan dhahay waayahay gabadhii oo Sweden geeyay wuxuu idhay gabadhaada maalin way ku waday weyn lacagta aan ku qaatana waxaan ka siinayaa oo idhay markoo halkaas geeyay wuxuu idhay farxiyo waxa laga baahan yahay sawirkaas oo inay hooyo walba oo cunugeeda baasaboor qaadanayo oo maxay u baahan tahay gabadheeda ana gabadheeda waxay u baahan tahay ma diidi kari cabdilshideeyo igeeyay sawirkii laga qaaday wiilo abti u yahay uu dawo daray sawirkii laga qaaday waraaqa laga sameeyay oo been abuur waraaqdaas oo gabadheeda ma u baahno mana rabto dowladda Sweden oo gudbiyay marka Soomaaliya dhibaatadii haysataa waxay tahay tan maanta intay soo fadhiisatay sidaan u fikirayna HB-gayga oo shan noqoy taasoo inuu beeniga sheegayo hooyo walbana cunugeeda way jeceshahay hooyo cunugeeda saxiixayso ama waana cadeyso maanta ma jirto warqadane oo been abuurkan cadilshideeyaha waa taasa waa u jeedaan anigana tayada saxda waa taasa waa u jeedaan marka wuxuu kaloo idhahay macallimada iskuulkeeda wuxuu ku dhahay gabadheeda hooyadeeda aan u geenayaa macallimadii la soo hadashay ilaa 6 bilood hadal gabadhii oo ku khasabay wuxuu dhahay ilaa 6 bilood hooyadeeda la jooga ku dhahay waxay ila joogtana malaha maxaan ku sheegahay
hadda walaashiisa taa way isoo caynaysaa waxay leedahay nolosha eeyaa ku noolyihiin ayaa ku nooshaa gabadhaadana ma arkaysid asigii waxaan dhahay walaalo waxaa maxaa iigu samaysay gabadhaada hooyadeeda ayaa ahay hooyo cunugeeda saxiixaysan ma jirto markaasoo wuxuu iigu dhahay naa waa edab daranta hooydhahay lixdeydii lambar amaaysi warani waxaan dhahay waxaa naga dhexeeya cunug amaama ku sii kariyaa dhahay markaasoo dhahay daa amaa isii waysid waa ku dilayaa naayaa naftaada iiga cabso oo i dhahay anigana maanta meesha isoo badhiisiiyey inaa walaal aana qabin wax ila dhashtay ma laha wiilna ma ila dhalanin gabarna ma ila dhalan aabbahay waxaan ku ahay madi adeerna ma qabi eedana ma qabi maxaa kujeka keligee aabbaheena wuxuu ahay madi marka waxaan ka codsanaya intii wax ay qaban karta inay wax iiga qabato dowladda Soomaaliya waxaan faagta oo dadka oo hooyayaasha looga qaadanayo ilmahooda oo la leeyahay ma rabto hooyo walba cunugeeda way rabtaa qof cunugiisa nacaya ma laha dugaagtaba Allah ka dhigay qof walbaba cunugeeda way jeceshahay dowladda Sweden ilaa iyo tan Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in ninkaas wax la iiga qabto gabadhayda hadda xamar ay joogtaa macaan dhahay gabadhayda u baahanahay gabadhayda igu soo ma ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ma ku daashay shaqooyinka xamaaliga ee warehouse ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka shirkadda Forever Living Product ma tahay qof sumcad iyo maamuus ku leh jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka hadday jawaabtaasi tahay haa waxaa tahay qofkii ku habboonaa ee hore u gaadh shirkadda Forever Living Product haddaba daawade ka mid noqoshada ganacsigan shirkadda Forever Living Product kuma xidhna wax shuruuda aan ka ahayn in da'daadu ay ka weyn tahay 20 iyo in aad heli kartid dhaqaale aad u yar oo aad ku bilaabi kartid marka loo eego faa'iidada aad ka heli karto kaliya magacaaga emailkaaga addresskaaga iyo telephone numberkaaga iyo meesha aad degan tahay ayaa lagaga baahan yahay markaad ka mid noqoto shirkadda Forever Living Product waxaad helaysaa warqadii kontraktiga ee aad shirkadda la gashay ID number adiga kuu gaara oo aad kaga adeegan kartid adduunka oo dhan hab online iyo off online si aad u doonatid waxa aad doonayso waa qiimo dhimis shirkaddani ayay samaysaa qiimo dhimiska iibka aad samayn doontid oo u dhaxaysa 5% ilaa 5% ilaa ay laga gaarayo 48% maxay iibisaa haddaba shirkaddan Forever Living Product shirkaddani waxay soo saartaa productyo ama alaabo loo isticmaalo isqurxinta dumarka caafimaadka iyo miisaan dhimista ama miisaan kordhinta waxaana ay ka farsamaysaa geedka loo yaqaano dacarta oo hodan ku ah geeyiga Soomaalida iyo malab wax kiimika ahna ma laha waxaad samayn doontaa ganacsi adiga kuu gaara oo aad maamulatid aadna ka samayn kartid dhaqaale aan xad lahayn waxaad ku biiraysaa bulsho ganacsi oo iswada caawimaysa waxaad heli doontaa tababar iyo aqoon kororsi bilaasha oo free si aad u gaadhid heerka aad doonaysid waxaad u kala gudbi doontaa darajooyin waaweyn oo qadarintooda iyo qiimahoodaba leh haddaba darajooyinkan aad gaari karto oo shirkaddan aad ka gaari karto maxay yihiin sidee se u gaari kartaa waxay darajooyinkan ay ka kooban yihiin 13 darajo oo midka kale ay ka sareyso ta koowaad ayaa inaad noqoto assistant supervisor tan labaad ayaa supervisor ta saddexaad ayaa assistant management ta afraad ayaa manager ta shanaad ayaa senior manager ta lixaad ayaa eagle manager ta toddobaad ayaa assorting manager iyo safir manager diamond safir manager iyo kuwa kale oo badan
oo darajada kale ay ka sarreyso kana dhaqaale badan tahay. dhammaan darajooyinkaasi waa kuwo aad xaqiijin kartid midba midka ay ka sarreyso aad bay uga dhaqaale badan tahay. waxaad kaloo shirkadda ka heli doontaa waxyaabo la yiraahdo incentives oo ay ka mid yihiin forever car plan oo 3 gaari oo dalxiisa iyo 3 gaari oo dalxiis free lagu geynayo sanadkiiba 2 jeer. check-you magaciisa la yiraahdo German bonus oo lacago waaweyn dadka qaar mutaystaan oo malaayiin dollar gaaraya. German bonus waxa la yiraahdaa oo ah in aad shirkadda ku yeelatid share joogta lacagaha trillions dollar ee ay sanad walba faa'iido aad qaybtaada ka qaadan doontid. shirkaddu haddii ay sanadkaasi dhaqaale faa'iido oo aad badan ay soo saarto dunida oo dhan waxa aad leedahay faa'iido adiga percentage ku gaara. haddaba haddii aad diyaar u tahay inaad ka mid noqotid ganacsigan baaxadda leh ku soo biir bahda forever living product kalena xiriir telefoonada shaashada ku qoran iyo WhatsApp linkiga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. waxaa halkaasi kuugu diyaara dad khibrad gaar ah u leh iyo la taliyayaal ka caawin doona sidaad ugu biirayso iyo sidaad ganacsigan u suuq geyn doonto. ha moogaanin forever living product hadda waxa uu ku eegyahay gobolka Minnesota marka loo furo jaaliyadda Soomaalida ee waddankaas.